urur siyaasadeedka wadani ee Somaliland ayaa maanta maalintiisii ololaha golayaasha deegaanka ee Somaliland waxa ay wax ugu qabteen dad danyara oo degan xaafadaha kala duwan ee magaalada Boorama waxaana isugu soo baxeen goobtii ay biyagelinta ugu sameynayeen 300 oo qoys oo kala duwan oo danyara oo awoodi waayay lacagtii biyaha lagu gelinayay waxaana munaasabadaasi ka hadlay musharaxiinta 22 musharax ee golaha deegaanka uga sharaxan urur siyaasadeedka wadani waxaana munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Awdal ee urur siyaasadeedka wadani Cabdikariin Muuse Maal waxaana uu sheegay inay arintan tahay mid wax loogu qabanayo bulshada danyarta waxaana halkaas ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee urur siyaasadeedka wadani Axmed Muumin maanta waxaanu go'aansanay markaa in xaafadda halkan ah oo gaadhaysa ilaa 300 oo qoys aanu beelka biyaha u soo jiidno guri walba hortiisa aanu dhigno waxaanu taas la garannay markaanu aragnay baahida dadka walaalaha ay u qabaan biyaha hadafkaygu waxa weeye sida ay u soo bixi lahaayeen kuwa tagayga xildhibaan majority Awdal aanu heli lahayn majority Somaliland aanu heli lahayn sidaan uga mid noqon lahayn saddex isba qaran ayaanu anagu maarka ku dadaalayna ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa in ma doorashada soo socota si nabadgelyo ah oo wanaagsan inoogu dhacdo waxaanu doonaynaa waliba biyaha markuu dhamaystirmaan ayaanu halka ka tagaynaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa taageerayaasha waxaanu leenahay waad mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin waad inna mahadcelinaynaa halkaasaan ku soo koobaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sidoo kale waxa iyaguna halkaas ka hadlay Dr. Axmed Aadan Buuxane Maxamed Cali iyo Dr. Cilmi dhamaantood waxay ku dheeraadeen in bulshada loo qabto adeegyada kala duwan ee bulshada kuwaasi oo ay ku tilmaameen inay tahay waxqabadkii ugu horeeyay ee ururka wadani oo ugu talagalay in biyagelin uu sameeyo dad awoodi waayay inay biyaha gashadaan meelaha ay ku nool yihiin waxa iyaguna halkaas ka hadlay qaar ka tirsan dadweynihii biyagelinta loogu sameynayay xaafadaha magaalada Boorama intaan ku wareejin gudoomiye ku-xigeenka koowaad waxaan rabaa inaan idin sheego kelimad yar awoodda Ilaah baa haya laakiin waxaan cadaynaynaa hadduu kaambeynku sii socon lahaa inta uu doono inaannu mashaariicda aan soo bandhigaynaa aan mar walba heli lahayn ballanqaad baan ku bixinaynaa hadduu 2 bilood ama sii socon lahaa 2 bilood dambe wax aanu sameeyno oo bulshada wax ugu qabanno ma aanan weynin waana Ilaahay mahadi maanta inaanu biyageli sameeynay waana Ilaahay mahadi maanta gobolada kalena ilaga sameeyay xoolo qal iyo taageerada masaakiinta la sameeyay sida la sheegay anagu walaalayaal waxaan cadeynaynaa anagu mucaarad ma nihin in la isfahmaan wanaagsan anagu mucaarad ma nihin cidna kama soo horjeedno dalkan nidaam baa ka dhisan inuu wax qabto waan qiraynaa kii ka horeeyay baa dhisay kii ka sii horeeyay baa dhisay maamuladii isbedelay midba wax uu qabtay annagu waan ku biirinaynaa waan toosinaynaa waan qurxinaynaa waliba laakiin annagu oran mayno wax lama qaban wax ma jiraan caytabana mayno daba balanteenu waa maalin culus balanteenu waa maalin culus weeyaan barnaamij male maalintaasi buuq male maalintaasi maalin wali waxa in la waqtigeeda la yimaado nabadgelyada la ilaaliyo waqtigeeda la xoojiyo Soomahan sabir qofku u yeesho safka ku jiro inuu sabirkeeda yeesho samarkiisa sharciga dalka waafaqo oo fawdo iyo ceeb iyo dhibaato ku sameeynin halka codkiisa sharaf la ku rido oo ku taageero cidda uu isleeyahay wax ku qaban Soomaha annagu waxaanu taaganahay hadii Ilaahay annagana nagu doorataan oo xubnaha xildhibaanada noo soo saartaan salaanta islaamka waxaan ognahay nolosha bini'aadmiga iyo wixii nooloo dhan jirkiisu wuxuu ka samaysan yahay 70% ama 3 meelood marka laga dhigo 2 meelood waa biyo ururka wadani waxyaalaha uu taagan yahay waxa ka mid ah inuu nolosha bini'aadmiga ee ummadda Somaliland inuu intii tamartiisa daryeelo taasi waxay tusaale u tahay haddii uu hoggaanka qabto ururkani oo uu xisbi noqdo oo aad codkiina siisaan cidda soo saaraysa waa idinka haddaad codkiina siisaan taasi waa bilowgii waxyaalo ka badanna waad ka rajayn doontaan insha Allah marka waxaan idinka codsanaynaa iyadoo cadceeday tahay inaad codkiina si halkaa u soo buuxiseen ee aad biyaha uga dhergi doontaan inaad waraaqaha maalinta 28-kana aad wadani u buuxisaan runtii waa arrin farxad leh inaynu haba yaraadee aynu waxqabad muujinay inaan muxuu ahay biyo u gelino xaafadani oo biyo la'aanta muddo dheer ragaadisay
ururkan waddanina sida loo soo sheegay wuxuu taagan yahay inuu nolosha dadka wax ka bedelo nolosha dadka jilicsan wax ka bedelo maxaa yeelay dadka ilaahay wuxuu noogu naxariistaa inaynu inteena baahan u naxariisanno ee jilicsan taasaa layskugu naxariistaa layskuna arsaaqaa fogsiiyaa la yidhaa iyo keenaa la yidhaa barwaaqeeyaa la yidhaa waxaan ballan qaadaynaa sidaa dadkooga ay u qaabileen waxaan u ballan qaadaynaa inay yar iyo weyn xisbiga annagu aanu gacan buuxda siino wax yaga siino aan gacan siino aad u mahadsantihiin taageerayaasha waddaniga halkan iskugu yimiday runtii hawshan labadii teeramay hore waxaan ku qabanaynay hawshii aan ku qabanaynay kaambeenka ayaan waxaan markaan eegnay magaalada meelaha ay ugu jilicsan yihiin baa waxaan go'aan ku gaadhnay annagoo markii aan urur ahaantay mahaan ku tashanay in aan ma garanaysaa meelaha ugu jilicsan ee biyo la'aantu ka jirto aan samayno inaan biyo u gelino markaa tiina alxamdulilah waanu ku guulaysanay ilaahay baa mahadle hadal badan kolley uma baahna waxqabadkii waa la arkayaa wakhtiguna waa yaro kulayl musharaxiintu iskugu soo baxayeen isku soo baxay lahaayeen ee isugu soo baxayeen xafiisyadooda iyo meelihii kale ay dadka wacyigelinta uga jeedinayeen waxaan ku bedeleen waxqabad in ay bulshada ay tusaan iyagoo bannaanka jooga ama xisbiga waddaniba isagoo dawladnimada ka maqan oo u tartamaya soo bixitaanka saddex xisbi qaran inuu dadweynihiisa uu mas-uulka ka yahay uu waxqabad uu ugu bedelo maanta waxaana marakaca oo ka marakacaysa in halkaa la joogo oo maxaada dhowr boqoloo mitir ay ugu deeqay ururka waddani inuu maxaaday meeshani biyo la'aanta ku hadsatay markaa bulshada waxaan uga markhaati kacayaa ama iyagu ka markhaati kacayaan in ay horumarka ay ka shaqaynayo ururka waddani maadaamuu horumarka ka shaqaynayana ay siiyaan codkooga haddii aadna doorataan waxaa imminkaan bilownay idinkoon la dooranin baa la waday haddii ilaahay ka dhigo xaafad walliba inay beerato hawaashka iyo khudradda ayaan ugu tala galsannahay haddii ilaahay yidhaahdo sidaa idin markhaatiya eenu qasabadii imminka u gelinayno baan ku dhammaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo wixii danyara iyo wixii aan biyo ugu jirinba waana ballan qaadnay waana bilownay taa daraaddeed baad nagu dooranaysiin anigoo magacaygu yahay xuseen cusmaan cilmi musharax ahna musharax ka sharaxan urur siyaasadeedka waddani waxaan ugu horraysiinaya ugu horrayn doonaya inaan ka hadlo waxaan ahay musharax u taagan bulshada degmada boorama gaar ahaan bulshada danyarta ah waxyaalo badan ayaanu qabanaynaa oon ballan qaadaynaa insha allah haddii ilaahayna garab istaago anigoo ah musharax ka soo jeeda bahda isboortiga oo dhallinyaradii isboortiga ah gobolkana magac ku leh nambarkaygu waa 620 dhammaan taageerayaashayda waxaan ka codsanayaa maalinta codaynta inay 620 u codeeyaan annagu haddaan nahay urur siyaasadeedka waddani waxqabadkii aan dadka mikrofoonnadii iyo buuqiya sawaxankii aan suuqa ku wareerin lahayn waxaan maanta u bedelay maalin waxqabad maalinhan waxtarno dadkayga ayna waxqabadka iyo biyaha iyo horumarka gobolku aanu weli soo gaadhin ee xaafad ka mid ah xaafadaha maxaafadda magaalada waxaan annagu ka door bidnay inaannu mikrofoonno iyo buuq iyo sawaxan bulshada ku gelinno inaannu dadkayga biyaha aanu biyo siino oon biyo tarno mahmaha waxay ahayd nina dhalashu ku dhex joogaan nina dooni uu kugu dhimanaya xaafadana xaafad aad u ballaaran ay ku nool yihiin dhowr kun oo qoys ay ku nool yihiin oo xaafadaha magaalada ugu waaweyn ka mid ah waxaanu isla garanay inay xaafadani ay ka aradan tahay adeegyada asaasiga ee bulshada sida biyaha iyo dariiqyada markaa balmalaha dariiqyada markaanu guulaysanaa insha allah inu dhisi doonaaye bal imika mardhacsa waxqabadkayga aragtaan inaanu biyihii idiin keennay ururka waddani waydin arkaysaan inuu yahay ururka kelihaata ee u taagan horumarka iyo waxqabadka bulshada reer awdal iyo guud ahaan somalilan waa ururka kelihaata wax idiin keenay soo ma laha socodkiina diyaar martiina siisaan ururka waddani anigoo cabdullaahi ibraahim faarax waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in howlgalka aan wadno haddii aanu ku guulaysano dadkayaga iyo dalkayagaba xisbigayga iyo annaguba aan garab geli doono
agna joogsan doono wax kastoo baahayo ay dadkaygu u baahan yihiin iskasaan ilaahay ka rajaynaynaa waxaan leenahay waxaana noo muuqataa in xisbiga wadani baaxad weyn ku leeyahay waddanka gudihiisa degmo kasti iyo gobol kastiba sidaa daraaddeed haddii aanu nahay musharaxiinta ururka wadani gobolka awdal gaar ahaan degmada boorama guul baan u rajaynayaa taageerayaasheeda aniga waa cabdilaahi ibraahim faarax lambarkayga waa 604 waxaan u rajaynayaa inay ii codayn doonaan kuna guuleysan doono doorashada guul baan u rajeeyay taageerayaasheeda guul baan u rajeeyay xisbiga wadani guul baan u rajeeyay madaxda wadani guul baan u rajeeyay Soomaaliland السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعافي شبكة ورر كمال مقالة بورما.